السلام الله عليكم soo dhawaada asxaabta qaaliga ah waa Xaydar dabcan waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin caafimaad qabtaan dabcan usbuucii aan soo dhaafnay waa iska yar mashquulsanaa dabcan wax video ah ma soo duubin laakiin waxaan dabcan idinla wadaagay lacagaha aan rabo usbuucaas inaan gaado dabcan oo aan qaybta telegramka iyagoo falanqaysan oo weliba yani xitaa forecasting leh dabcan aan idinla soo wadaagay dabcan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen lacagtan euro jby dabcan waxay ahayd lacag aad u qurux badan haddaan dib ugu laabano dabcan telegramkii weliba qaabkii aan idinkula wadaagay dabcan dabcan halkan sad u jeedid waa telegramkii weynaa dabcan Xaydar dabcan 19 bishii September waa ugu dambeysay oo usbuucii hore dabcan falqaynta la wadaagay usbuucan maxaan sugayay lacagahan sugayay maxaa kamid ah waxaa kamid ahaa sad u jeedaan euro USD lacagtay dhahaan dabcan 4 hour time frame kan ku wadaagay in ay lacagtani insha Allah kala wareegayso dabcan oo ay levelkan hadda ay joogto ay kala wareegayso dabcan iyadana waxaan soo dhigay dabcan sad u jeedaan 19 bishii September 2021 adiga waxay ahayd 3 saac iyo 41 dabcan maxaa dhacay haddaan dib ugu laabano lacagtii maxaa ku dhacay dabcan saad u jeedid waatan waxaan u badinayaa meeshan inay ahayd meeshaan ka falanqayna dabcan halkan ay joogtay already maxaa halkan trailing aan noo saarnaa dabcan saad u jeedid inkastoo hadda trailingka lagu jiro laakiin lacagtani dabcan halkaas waxaad aragtaa in ay retest ku samayso wax lahoo this structure dabcan kadibna ay soo dhacday maxaa aragtaa newskii isbuucan soo baxay dabcan lacagtan waxaa u badinayaa inaan xitaa abredin ka siiyey telegramka dib ugu laabataan dabcan telegramka dib ugu laabto waxay rikaadeen السلام الله عليكم سو قاطي جبنتي maxaa dhacay breakeven after yani 0.75% markii ordayay breakeven igu saartay sidoo kale USD maxaan ka fiilay iyadana qaab ismeedkeeda u jeeda USD iyadana meel level aad qurux badan baa ka sugaya halkan inay timaado qaab correction kadibna aado euro AUD iyadana dabcan maxaa laga sugayay dabcan kaba soo qaad waxaa laga sugayay kaba soo qaad dadka qaarkood lacagta waxay ka qaateen wax loo jibintan dabcan inay ka qaateen kadibna already waxay ku saartay wax loo dabcan weli waxay ku haysaa wax loo gudub kadibna waxaad aragtay in dabcan ay samaysay wax loo soo dhacday dabcan waxaa laga sii sugaya lacagtan in ay sii dhici doonto dabcan ay tegi doontaa levelkan lacagtan laga rajeynaya insha Allah inay tagto waayo saa sheegnay dabcan dadkii halka qaatay dabcan arday badan baa arkayay halkan ka qaatay lacagtan oo ku jiray dabcan xoogaa yar dib ugu laabatay qof xaggan uu yaalay stop losskoodu maxaa ay rajeynayaan insha Allah lacagtan long oo haysan karayaan iyadana waayo DXY da dabcan haddaad dib ugu laabto iyadana waad u jeedaa waxa loo in structure isku diyaarisay lagu push garayn karo isku diyaarisay dabcan sidoo kale halkan iyadana qaab noocan oo kale samayn karaysaa iyadana already way soo dhici karaysaa laakiin waxaa probability badan dabcan in halka bars lagu tago dabcan kadibna trade tago wax loo this level in la tago dabcan oo dabcan si yani structure ku dhameystiro waa structure expanding ka ma dhameystirna markaas oo kale sidoo kale sidaas dabcan waxaan kaloo soo diray lacagaha ay ka mid yihiin dabcan dhalinyarada dib ugu laabto lacagtan euro JPY dabcan euro JPY waxay ahayd lacagtii ugu quruxda badnayd dabcan haddaad aragtaan dabcan halkan waxaad idhi dabcan waxaad ka eegtaan wax loo structurekii already way bixisay dabcan maxaa dhacay in ay levelkii hadda dabcan tagtay haddaad eegtid wax laho aad dib ugu laabto wax laho dabcan already maxaad aragtaa dabcan xageen ka falanqaynay haddaad dib ugu laabatid yacni waxaan ka falanqaynay wax laho 4 hour time frame kan ku falanqaynay soma 4 hour time frame ka dabcan impulsive ka dambe dabcan waxaan ka sugaynaa wax laho in qaab correction uu sameeyo maxaa dhacay already correction uu sameeyay waad u jeedaa impulsive kan maxaa aragnay correction maxaa meeshan ka dhacay dabcan waxaa ka dhacay wax laho in la sameeyo wax laho structure dabcan structure kan iyo structure active waa isa soo shabahan dabcan haddaad eegtid si fiican haddaad eegtid sidoo kale maxaa meesha ka dhacay cadahanta lacagtii ugu qurux badan qaatay dabcan maxaa dhacay dabcan waxaa dhacay wax laho halkan waxaa ka dhacay wax laho in structure la sameeyo dabcan double bottomka hoose la yimi
qaab structurally lagu yimid dabcan iyadana maxaa dhacday already in upload screen sidoo kale caadi ahaan haddaad eegtid waxa laho halkan maxaa ka dhacay waxa laho dabcan candle rejection ka dhacay saad u jeedid dabcan iyadana aad ay qurux badnayd oo saaid ay qurux badnayd dabcan waxaa loo badinayaa in hadda ay ordayso waxa laho lacagtani dabcan 6 point something laakiin targetkayga kuwaad waa halkan the maximum targetkayga ugu dambeeyana xagee noqonaya halkaas oo ilaa up to 20% inay dhaqaaqdo dabcan aad ay qurux badan tahay dabcan run ahaantii lacag yacni saaid u qurux badana way ahayd dadka qaar dabcan waa la wadaagay oo way qaateen aad ay u qurux badnayd dabcan halkan xitaa markii imanaysay dabcan halkan markii imanaysay dabcan pre-given ay taalay even waxaan xitaa dabcan halkan oo kale sababta ay ku timi waxa weeye qaab structurally meeshan ku timi maxaad aragtay halkan in laga sameeyo wax laho natural keliya maxaa dhacay all up in loo bushkariyay dabcan aad ay qurux badnayd dabcan markaas waxaa laga sugayay wax laho jihaaba dabcan xitaa even halkan waxaad u jeedaa wax laho jibinta halkan oo kale qofkii ka qaataysna طبعا waxa ay profit ay wadaa طبعا saad u jeedid laakiin hadda eegto waxa loo 15 minute time frame ka flag badan baa ku jira iyadana profit ay wadaa waxa yani la rajaynaya insha Allah in ay asbuuca soo socda ay trainka qaabkay u tagtaan arki doono طبعا aan iyadana haddii ay jabsatana ay above structure this yani ay tagtana aan yani continuation ka sii sugayno euro JB euro AUD iyadana hadaan eego lacagta ku xigta waa euro AUD dabcan euro AUD waxa structure wax weeye dabcan caadi ahaanta waxa halkaas yani in structure lagu sugayna maxaa dhacay iyadana waxa dhacay dabcan sida u jeedo wax laho lacagta waxa dhacay dabcan structure kan isdaba jooga dhacay dabcan halkan ka sugayna wax badan ka soo laabto maxaa dhacay structure ka dheeraystay maxaa halkan dhacay sidoo kale laabashooyin baa meeshan ka dhacay halkan markay soo jabsatay meesha wax ka soo loo flag damina ka qaato maxaa dhacay ima aysan siin oo wax intriya ima aysan siin okay halkan maxaa sidoo kale ka dhacay waa la soo jabiyay maxaa sugay wax laho in structure meeshan laga sameeyo kadibna la sii daato maxaa dhacay in aab loo jabiyay dabcan oo yani dabcan saad u jeedid iyadana dabcan wax waliba u jeedo dabcan sidoo kale lacagta ku xigta maxay ahayd يعني euro NZD ما GBP NZD GBP NZD iyadana maxay samaysadaan dib ugu laabto dabcan GBP NZD GBP NZD iyadana wax interior qurux badan ma aysan siin dabcan wad u jeedaan wax interior qurux badan siin dabcan waxaad u jeedaa suuq range ku jira dabcan rajaynaya in meeshan uu tagi doono dabcan meeshan uu tagi doono kadibna halka uu sell ka soo aadi doono dabcan iyadana saasay u qurux badan tahay sidoo kale lacagta ku xigta waxay noqonaysaa dabcan AUD JPY iyadana trade qurux badan aan ka qaatay dabcan baan u badinayaa trade qurux badan aan ka qaatay iyadana saaid ay qurux badnayd dabcan sida u jeedin dabcan waxaan ka qaatay trade already waan galay iyadana pre-given ay taala dabcan already maxaa aragtay in lacagtii ay sidoo kale dabcan halkan waxaad uga jeedaa laho structure kan ku dhacay already uu ilaafay waxaan arkay dabcan soo halkan maraya suuqu kama aan qaadan waxa la halkan flag qurux badan kama aan uma aan jeedo dabcan sidoo kale halkan uma aan jeedo oo candle kan dabcan baan side uga cabsaday sidoo kale maxaa dhacay halkan oo kale sidoo kale dabcan waxaad u jeedaa laho inaan ka qaadan laakiin yani out of structure kan aan ka qaatay iyadana aad ay qurux badnayd iyadana aad ay qurux badnayd dabcan sidoo kale lacagta ku xigtay waxay ahayd lacagtan dabcan lacag waxaa jirtay dabcan yani iyadana dabcan aan qaatay oo ahayd euro NZD dabcan way iskaga jirtaa iyadana wax trade kama oo ujeedo waxaan markay sameeynaysa laakiin structure side qurxan ku jira meeshan sidoo kale AUD USD iyadana dabcan wada ujeedaan oo iyadana qabshad qurxan ku jirta euro USD maadaama ay yani ku jirto wax loo jiha wareeg waxa iyadana laga rajeynaya wax loo iyadoo jiha wareeg gasho dabcan lacagtan ay dhahaan oilka baa iyadana si qurux badan u dhaqaaqday dabcan iyadana wada ujeedaan waxaan u badinayaa isbuucan ka hore isbuucan inaan la wadaagan u badinayaa si isbuuci ka horeeyay waxa
I don't know marka waan eegayaa dabcan waxaan u malaynayay dabcan inaan la wadaagay laakiin waxaan u badinayaa isbuucii ka horreeyay inaan idin diriyo dabcan lacagtan waxaad ka sugtaa wax la dhaho jaaba maxaa dhacay isbuucii hadda waxaa dhacay already in ay lacagtii ay dhaqaaqday dabcan aad ay qurxin dabcan haddii almost like 2.3% ay dhaqaaqday masha allah waxaa laga sii rajaynayaa insha allah inay jiyada sii aado oo ay dhaqaaqdo ilaa around 5% يعني 6% inay dhaqaaqdaan rajaynaya insha allah aad aa umahadsantihiin asxaabta qaaliga lacagihii isbuuca waa kuwaasa dabcan waxaan rajaynaya insha allah inaad ka faa'iideen يعني إن شاء الله وحي كومنتي يعني إيو محلها يعني محلها أبريدنا إن شاء الله كلا سعودة تيليجرام كيغا حيدر فيكس طبعا وحي سؤال أدخبتنا طبعا قيبتا شاتين كا إيقو صودر طبعا هذا وما سنتين وإنو إن شاء الله أسبوع صوصع